السلام عليكم أصحاب تقاليد وسلامتين مeel kastoo adduunka aa ka joogtiin waa saaxiibkiin abuukar culusow madax washkax afbali banaan daga sambalolsha iska dheh daartid dhusumaydheh waxaartid daartid andhuf weynaa dhihi kartaa muga sheekooyinkii aan ku balansaneen rabnaa inaan mahan ka akhriyo sheekooyinka qaabkan usoo xula rabaa inaan idiin sheego inay qaab cadaalada tahay idiin sheegaa aniga sheekadan akhraa ee keliya sheekada mugaan akhriyo mugay fan ila noqoto waa soo sawiraa wallahi anaan magac akhrin waayo magaca akhrinay mise magaca ma fiirinay sheekada leen akhraa waa soo sawiraha qofka sawiran washkax ku siiyaa waa soo qaadaha banaankaana keenaa mugan inta keeno oo applicationkaas oo dhex gasho akhri rabo magaca fiiriyaa saa magacan sheegaa muga saasaa usoo xushay sheekooyinka haddana shantii ugu horeysaan sheegaa shanta kalena waa dambeysiiha marka ila socda hadde marka hadda waa bilaabaa saasaan idinka rabaa inaan ila socotiinaan rabaa maxamed cabdi cali moha wuxuu soo qoray nin reer muduga ayaa wiilkiisa yurub u dirsaday maalmo kadib wiilkii ayaa soo hadlay aabe waa nabad tagay laakiin hal midaa jirta oo aan kaa qarinayay diinta islaamka ka baxay odaygii ku yiri haddaad foolxumadaada kala baxday waa ilaahay mahadiis subxaan allah walaah kan odaga wax badan uu ogaaya oo balaya asoo yar oo yariis abo daayir wajigu istaagay kan waaba kashki yani kan ugu yaraa wuxuu u ekaay saddex iyo banaanka lagu tuuray lagu istaago la buus asagana oo balaya waa mahadsan tahay maxamed cabdi cali moha qaabka qurux badan aa ugu qayb qaatay waa ku mahad celinaa taagis waxaa kaloo iyadana ka mid ah Suweerita in cabdi waxay soo qortay nin waalan baa laga soo saaray shifo asagoo gaari lagu wado ayaa gurigiisa hortiisa la gaaray markaasuu yiri George waa xaafadaydii dadkii baa isfiiriyey ninkuu roonaaday bay isdhaheen waxaa ka soo baxay xaafadda naag iyo caruur suu yiri waxay ka wadaa asuu yiri camalno naagtaasna anaa qaba ciyaalkaasna aabaan u ahay haddana waxaa wadada soo maray nin gaari wata kulaha anoo shaqo u socdo waay asagana walaariifka u qabaaba ninkaas gaariga wato inuu asagaya asagoo oo shafadii joogo oo ugu war dambeys macnaha asoo shafadii joogo ugu war dambeys horta shifadana idinka daba geeyaha waxaa u balayaha cd-ga waqooyi waaye cd-ga oo waqooyiga ku jiro qoftaan waxa waa dadka cd-ga koonfurka oo ku jiro shifo waa isbitaal caadi laga wada anfaatin adiga sheekada sheeko kale u fahmina walaa nuuc kale idinku fasirmay hadaa akhrisin faanta adiga shifada ama shifo waxay ka wadaa isbitaalka ama isbitaal waa faatina oo balayaha sheekada way qosol badan tahay Suweerita waa mahadsan tahay Suweerita ina cabdi aadi aadan kaaga mahad celeynaa hambaliyo zayn haji milano wuxuu soo qoray naag aad u cayilan oo xoogaa socod ka dhibaayo oo xanuunsan ayaa dhakhtar u tagtay baaritaan dheer kadib waxaa loo sheegay in ay caafimaad qabto oo kaliya miisaankeedu aad u batay oo baruur badan ay fuushay sidaa darteed dhakhtarkii wuxuu kula taliyey in ay cuntada iska yareyso sidoo kalena dhakhtarka waxa uu u sheegay inay habeenkii aysan wax casho ah cunin cashada gabka dhahaleen hadii kale wallahi waa baqi waa qarxi heblaaya qarxda la maqlaa camal jidka iyadoo barayso raagtii oo okay ay tiri gurigeedii ayay iska tagtay markii habeenkii la gaaray ayay gabadheedii ku tiri hooyo dhakhtarkii ayaa igu yiri cashada jooji waxaad ii soo kululeysaa qadada maanta waa wari qofta cashada waa u goysa laakiin qadada maanta qaban u soo qorsaaraya walaal sheekada waa qosol badan tahay zayd milano aadi kaaga bahda oo asna waxa kale asna nasiib u yeeshay meeshan laga aqriyo commentigiisa deeq darajo wuxuu soo qoray oday waayeel ah ayaa lagu yiri adigoo 95 sano jiro ayaad weli qiimaha xaaskaaga garanaysaa oo mar kasta erayo macaan ugu yeeraysaa sida baby habibi gacalis iyo wixii lamid marka noo sheeg sirta ka dambaysa odagii kulaha 15 sano ka hor ayaad ilaawo magaceedii waxaa ka baqa ilaa weydiiyo waa wari waraa odaga waaba biisaani cadi 15 sano magaca la ilaawo waa xabada waa iska joogtaa waa qof caadi oo marti waayo wala baby iyo lagu gambooyaa waa mahadsan tahay deeq darajo teeda kala hambaliyo waxaad ka mid noqotay dadka soo qaadan commentigooda waxa kale isagana maanta aan akhrinayna commentigiisa Cabdiraxiim Xinkey waxa uu soo qoray nin marqaansan oo jooga degmada waa bari ayaa fariistay dhismaha jardiinka ee guriga hortiisa ka dhisan markaasuu xoogaa ku qayilayay macnaha meeshuu ku qayilayay intuusan gurigiisa aadin ayaa roob yimid kadibna ciddii ayuu guriga u gargaraacay waxaana ka furay maamadii
gudaha ayuu usoo galay markaasuu ku yiri dardiinkiina soo xareysta yuun idinka qoyin waa wari odaga qaraarka waa gaaray xariifkan geed jinni ama geed yahuud ku qiilaya umalaya kan jaad caadi u culina umalaya bisiga dardiinka soo xareysta weeseyga wallaahi sheeko qosol badan waaye cabdiraxiim xinkey abti aad iyo aad kaaga mahad celaa qaabka quruxda badan sheekada qosolka badan noogu soo qortay teeda kale waa ku mahadsan tahay commentiga hambaliyo waxaad ka mid noqotay dadka soo qaadanay mahadsanid